shayga u horeysa ee aynu ku bilaabaynay waa shayga ugu weyn uguna muhiimsan la-aantiina qolka hurdadu uuna noqonayn qolka hurdada waa af English bed. Bed, B-E-D, bed. Bed waa sariirta, waa ta la-aanteed ayna noqonayn qolka hurdada. Bed waa sariirta, inkasta oo Soomaalidu ay iska dhigtaan keliyaata hadday doonaan caw ama firaash ay iska dhigtaan, kuwaasna waan isla eegi doonaa magacdooda iyo waxa loogu yeedho. Ta ugu muhiimsan ee qolka hurdada ka dhigaysa say qolka hurdada waa sariirta, taana waxaa la yidhaha af English bed. Bed waa sariirta. Haddii qolkaagu una sariir lahayn oo aad ku seexato firaash, firaashka waxaa la yidhaha af English mattress. Mattress.